tani waa xayaad ninkaana waa shamuurey labadooduba waxay jaanis ka heleen meediyaha ama TikTok ayay jaanis kaga heleen inay dadka wax u soo bandhigaan laakiin xayaad oo ah hooyo karti leh sida iyadu ay jeceshaa mar walba in loogu dhawaaqo anaga ka bilaal ahaan aan ugu dhawaaqayo hooyo karti leh maama xayaad iyada oo ka faa'iideysatay waqtigeedii malabka ahaa halka walaalkan shamuurey uu ka faa'iideysan waayay balse dadkii ihsaanka u galay oo kula jisaaray kulana dagaalamay isla meediyaha kuna aflagaadeeyay tuuganimo iyo caawintii loo sameeyay oo u arkay in dan looga raadsaday balse xayaad oo taqaana meediyaha halka laga maro ayaa iyaduna jaaniskeedii ka faa'iideysatay noqotay hooyo karti leh samaysatay ganacsi waliba guusha ugu weyn ee maanta xayaad ee ku naaloonaysa ayaa ah inay tahay qof ganacsato ah haddana guri kira ah aana ku jirin taasi waxaa ku mahadsan ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo dadkii caawiyay sidoo kale walaalkan shamuurey maanta ayaanu ka gaarnaa inaan caawino isaguna waxaan rajaynaynaa insha Allah in uu soo fariisto mar kale sida aan habeenadii ugu dambeeyay aan aragnaba in la caawiyo la garab istaago si uu isaguna uu ganacsi u samaysto cashirna uu ka bartay waxyaabihii hore u soo dhacay waan rajaynayaa shamuurey inay dadka dhan ku wada sinaadaan oo aad walaashato qof walba ku caawiyana aad uga mahad celiso mahadsanida waxay ku soo kordhisaa guulo fara badan oo aad gaari doonto thank you